السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو HMC Production maanta videogan waxa uga hadli doonaa qaabkee ama sidee aad ku duubi kartaa video adigoo isticmaalaya DSLR videogan waxa uu kala qaybinaa laba qaybood qaybta koowaad oo aan ku sharxi doono waa maxay FPS iyo settingka loo isticmaalo ama u isticmaali kartid marka duubaysid video qurxan ama quality leh that's coming up daawasho wanaagsan FPS waxa loo soo gaabiyay frame per second camera walbo DSLR waxa leedahay optiono kala duwan oo ay ku siinayso markay imaato FPS ka saale waxaad ku duwan kartaa 24 FPS ama 25 FPS ama 50 FPS ama 60 FPS taa oo iyadana ku xiran qaabka adiga ama nooca aad rabtay inaad video u duubto aad rabtay inaad duubto video sharp ama aad duubto video slow motion FPS da kala isticmaalayso way kala duwan yihiin hadii aad rabtay inaad duubto video cinematic oo smooth waxaad isticmaashaa 24 FPS laakiin hadii aad rabtay inaad duubto video slow motion oo slow aad ka dhigtid markaad editing imaanayso waxaad isticmaashaa 30 FPS ama 50 FPS ama 60 FPS si videogaaga smooth u noqdo basically FPS ka oo aad badisaa ama aad ku duubtaa mid high wax kale ma bedelayo wuxuu bedelayaa size ka videoga oo noqonaya video size-kiisu weyn yahay haddana wuxuu ku siinayaa video smooth oo aad u qurux badan hadda aan u maano shutter speed waa rule fast oo adag oo aad mar walba laabayso FPS ka ama frame per second ka aad isticmaalayso ama aad ku duubayso markaas oo aad ka dhigayso shutter speed ka mid ku laabma tusaale haduu uu yahay frame second ka aad ku duubayso videogaaga 24 FPS markaad laabtid 24 FPS waxay noqonaysaa 48 laakiin kameradu kuma siinayso 48 waxay ku siinaysaa ama option kugu dhow ay ku siinayso waa 50 shutter speed ka waa inaad ka dhigataa kan kugu dhow oo laabaya FPS ka adiga video ku duubaysid sawirkan saa ugu jeedin 24 FPS waxaad isticmaalaysaa 1/50 seconds 30 FPS waxaad isticmaalaysaa 1/60 50 FPS waxaad isticmaalaysaa 1/100 60 FPS option kugu dhow ayna siinayso kamerada waxa weeye out of 125 marka uu maano aperture markaad saxaysid ama aad dooranayso waa inaad kooda horgo'aan ka qaadataa qaab kee ayaa rabtaa inaad video u duubto waxa rabtaa video background-kiisu yahay blur oo la arkayno subject-igu aad u muuqdo mise waxa rabtaa video maca subject-i maca background-kooda muuqda tusaale hadaad rabto inaad duubto video background-kooda blur yahay oo subject ama qofkii aad duubayso uu ka dhaxbaxsan yahay ka saaran yahay oo gadaalna wax ka dambe aan la arkaynin waa inaad isticmaashaa aperture oo aad u sareeyo oo high aperture waxaad isticmaali kartaa f1.4 f2.8 f4 laakiin hadii aad rabto inaad video duubtid oo background-ka iyo subject-iga ay wax dhan ay yihiin clear oo la wada arkayo waa inaad isticmaashaa low aperture tusaale ahaan oo noqon kara f10 f11 marka aperture-ku waa mid ku xiran qaab nooceedka ama qaabka videoga aad rabtid inaad u duubtid haddaan u maano ISO-ga wuxuu ka saacidinayaa inuu videogaaga iftiin yar ku daro ama ka dhigo video madow saa adiga u dooratid waxa jira wada fudud ku ogaan kartid ama ku sixi kartid inuu ISO-gaagu yahay ISO sax iftiin badan lahayn aanan mugdi badan lahayn wuxuu ku tusinayaa camera histogram-keeda hadii kamerada histogram-keedu uu u badan yahay dhinaca midig inuu videogaagu aad ugu badan yahay iftiinka marka waxaad yareynaysaa ISO-ga oo waxaad keenaysaa centerka histogram-ka histogram-ka zaid ugu badan yahay dhinaca bidix waxay la micno tahay iyadana inuu videogaagu u yahay video aad u madow ama nal taasina waxaad sameyn kartaa inaad kordhisid ISO-gaagu ilaa aad ka gaaraysid ama aad geynaysid centerka dhexda marka ma doonaysid video inuu noqdo mid aad iftiinku ugu badan yahay ama mid aad u madow aan la daawan karin marka waxaad u baahan tahay inaad ku adjust gareysid ama aad ku level gareysid camera histogram-kaaga meeshuu ISO-gu yahay iyo meeshaad ka dhigi lahayd marka hadda aan ka hadalno focusing waa midda ugu badan ee su'aalaha badan laga keeno su'aalaha ka imaan kara waxay yihiin maxaan focus gareeyaa qaab noocee u focus gareeyaa iyo su'aalo badan oo focus ku xiriira jawaabteeda taasna waxay noqonaysaa oo idin siin karo waxa weeye isticmaal manual focus ku xirnaan wiliga auto focus oo waxaad mar walba ku xirnaataa aad markaad duubaysid videoga ama sameynaysid videoda manual focusing kamerooyin qaarkood ayaa waxay leeyihiin auto focus aad u fiican laakiin manual focus is the best option aad mar walba aad ku tashan kartid ama isku haleyn kartid manual focus-kan wuxuu ka saacidinayaa inaad focus gareysid tusaale ahaan hadaan focus gareeyo gacanteeda aniga ma aragtaan laakiin hadaan aniga focus gareeyo gacanteeda ma aragtaan wuxuu ka saacidayaa inuu ku fududeeyo focus-ka marka aad ku
jirtid hawl ama aad sameynaysid video. Hadda aan u imaano white balance-ga. White balance-gu dadka badanaa way iska iltiraan ama way iska ilduufaan, laakiin waa mid aad u muhiimsan inaad ka taxadirtid intaadan duubin video-ga. White balance-gu wuxuu u xilsaaran yahay videoska dhinaca kalarada. Video kalarkiisa inuu soo noolaado oo nuxur yeesho waxa ka saacidaya ama ku sameynaya waa white balance-ga videogaas. Haddii aadan sixin white balance-gaaga oo video-gaagu yahay video kalaradiisa aanan balance garaysaneyn, hadhow waxaa dhib kugu noqonaysa oo kugu adkaanaysa markaad imaatid editing-kaaga inaad edit garaysid ama videos aad saxdid. Hadaad samaysin waxay ka qaadanaysaa waqti badan. Waxaan kula talin lahaa inaad isticmaashid intaadan video-ga bilaawin ama aadan duubin inaad isticmaashid gray card oo gray ah oo aad camera hortiis dhigtay ama sawir ka qaadatay ama aad ku saxday white balance-ga ama meesha aad joogtid inaad ka raadisid meel cad oo aad iyo aad u white ah oo aad meeshaas ku saxatid white balance-ga. Waa muhiim inaad kalarka video-ga aad saxdid intaadan duubin ka hor. taasi waxay ahayd settingkii iyo qaabkaad kamarada settingkeeda aad u saxan lahayd saad u duubto video quality la oo aad u qurux badan. taasi aan ka soo gudubno hadda waxaan u maanaa inaan siiyo tips oo aad ku duubi kartid ama aad ku sameyn kartid video aad u qurux. Tipka koowaad aan siinay waxa waa inaad focus gareysaa video composition-ka. waan ogahay inuu gearka oo qalabka isticmaalayso muhiim yahay, kamarada aad isticmaalayso ay muhiim tahay, wax walba ee light-ka inuu muhiim yahay, laakiin aduu videogaas usan lahayn ama lagu duubin composition fiican wuxuu noqonayaa video aan daawan karin ama nothing ah. marka isku day inaad isticmaashid qaybo kamid ah composition rules-ka. haddii aad bilow tahay isticmaal ama ku bilow rule-kan loo yaqaano rule of third ama saahada shaashada ka arkaan bakaas wuxuu ka saacideynaya video-ga inuu noqdo video la xansaaran oo dheelitiran. tipskan labaad waa mid qof walba iyo dooqiis uu yahay aanan ahayn khasab ama waajib kugu ahaan, laakiin aan kula talinayo inaad listi ku darsatid oo fiiro gaar ah u yeelatid. tipska labaad aan idin siinay waa inaad soo gadatid prime lens oo ah lensiyada lambarada ay xadidan yihiin, waxaana kuu fududeynaysaa inaad ku duubto video sharp ah oo smooth ah oo aad kalaradooda u qurux badan yihiin. laakiin zoom lensiga iyo kit lensiga way fiican yihiin malihi way xun yihiin, laakiin markii loo imaado prime lensiga ay isku qiimaha yihiin zoomka iyo kit lensiga way ka fiican tahay 100% markii imaato kalar ahaan, sharp ahaan iyo allah musta'an quality ahaanba. tipka saddexaad hadda waxaa haystaa gear aad u fiican, waxaa taqaanaa aad video ku duubanaysid, waxaad baratay white balance sida kalarada loo soxo everything, laakiin videoga markaad duubtay aad sameeyso waa video shaky ah oo aanan steady ahayn. marka waxaad u baahan tahay inaad soo gadatid tripod ama steady tripod videogaaga hadhow ka saacideeyo inuu steady noqdo oo shaky noqon. marka waxaan kula talinayaa hadda haysanin inaad gelisid qarash oo investment ku sameeysid tripod aad u fiican oo muddo dheer ku hayn doona. ugu dambeyn haddii aadan haysan qalabada had soo sheegnay ama aadan awoodin inaad soo gadatid waxbaha ka walwalin waxba nidaada hajibin. waxaa muhiimad waxa weeye qalabka aad haysatid ama aad gacanta hadda ku haysid inaad baratid sida loo isticmaalo. experience-ka lagu sheega waa inaad maalin walba wax cusub tijaabisaa, aad nafsadaada imtixaanta oo aad challenge gareysaa si aad u horumariso skills-kaaga ama xirfadaada videography-nimada. aad baad u maasantahay hadaad ilaa inta soo daawatay videogan. hadaad wax yar ka faa'iideyn waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid channel-kan, aadna gambaleelka taagtaa oo la socotid wax walba ama cashar walba aan soo gelino, la share gareysaa saxaabtaada iyo family-gaaga. waxaan kaaga tagayaa sidaas iyo nabadiino waa inoo video waxiga. maca salaama.